marshada. guud ahaan marshada waxay hawsheedu tahay in gaariga xawligiisa ay kordhiso marka baabuurka motorkiisa uu u baahan yahay awood dheeri ah. tusaale marka aad fuulayso meel dalcad ah ama marka aad dareento gaariga inuu u baahan yahay xawli dheeri ah. marshadu waxa ay leedahay xawliyo tiro badan oo aad ku bedeli karto. giirka koowaad waxa ay hawshiisu tahay eber ilaa iyo 10, halka giirka shanaadna ay hawshiisu tahay 40 ilaa iyo 70. marka aad sida saxda u isticmaasho, giirka wuxuu ku ogolaanayaa in aad doorato midda ku habboon marshada aad doonayso, wuxuuna motorka u shaqaynayaa markaasi si aad u wanaagsan oo suurtagal ah. marshada koowaad waxaad ku bedeli kartaa marka uu gaariga xawligiisa uu isdhimo oo kaliya. waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad bareega taabato si xawliga gaariga u yaraado, kadibna aad doorato giirka labaad si gaariga u sii socdo. haddii aad doonayso in gaariga xawligiisa uu yaraado, isticmaal bareega lugta oo kaliya adiga oo durbaba sheelaraha ama xawli kordhiyaha halkaasi ka sii qabanaya. waxaana dhacda mararka qaar inaad marsho ka booddo adigoo giirka afraad ku jira ayaa gelin kartaa kan labaad. waxaad sidaasi kale aad samayn kartaa iyadoo giirka saddexaad uu gaariga ku jiro inaad u booddo giirka shanaad, markaasina waa marka aad fuulayso waddada weyn ama highwayga. isticmaalka calaacasha gacanta ama baabacada. si aad ugu shaqayso marshada ama heerarkeeda kala duwan, waxaa jira qaab lagu magacaabo isticmaalka calaacasha gacanta ama baabacada, waxaana arrintaasi tababar ku samayn kartaa oo keliya isaga uu gaariga dansan yahay. marka koowaad farasiyoonaha ama kalaajka halka hoose u riix. si aad u doorato giirka koowaadna waa inaad lugtaada bidix ku riixdaa farasiyoonaha ama kalaajka, kadibna calaacasha ama baabacada gacantaada sidaasi ugu qabo marshada. si aad u doorato giirka koowaadna, dhanka bidix u riix marshada, kadibna halka hore u riix mar kale. si aad giirka koowaad ugu beddesho kan labaad, gacantaada ku hay marshada, si deganna dhankaaga ugu riix waa dhanka bidix, kadibna si toos ah dhankaaga midig ugu soo celi. intaasi kadib gacantaada u soo jeedi dhankaaga, waxaadna gelinaysaa si foola ah ama neutral oo halka dhexe ah, kadibna halka hortaada ah si toos u gee si aad giirka saddexaad u geysato. sidaada gacanta ugu hay si aad giirka afraad u geysato. si toos ah gadaal ugu soo celi marshada. si aad u doorato giirka shanaadna, u riix halka hore marshada, kadibna u riix dhanka midig, kadibna halka hore u riix. goormaa la beddelayaa giirka? waxaad ku ogaan kartaa in gaariga uu u baahan yahay in marshada laga beddelo dhawaqa uu bixinaya gaariga iyo in xawliga loo kordhiyo uu gaariga aad ugu baahan yahay. arrintaasina waxaa kaa caawin kara macallinkaaga inta aad baranayso gaariga. si aad adiga laf ahaantaada u garato markaad marshada ama giirka beddelayso, ogow inay tahay meel nabad ah. marna ha isku dayin inaad marshada taabato meel u baahan in labada gacan aad ku qabato isteerinka sida gooladaha oo kale. sidee loo beddelaa giirka? si aad u beddesho giirka, sii daa sheelaraha, kadibna hoos u riix farasiyoonaha ama kalaajka. labadaasi ficil waa laba inta badan wada shaqeeya. dooro giirka ku habboon gaariga markaasi uu u baahan yahay. isha ku hay waddada marka aad ficilkaasi samaynayso, kadibna dib u soo celi kalaajka ama farasiyoonaha si deggan inta aadan riixin sheelaraha. intaasi kadib si deggan u riix sheelaraha. aan mar kale kugu celiye, labadaasi ficil waa kuwo wada shaqeeya. waad ku samayn kartaa tababar dheeri ah beddelidda giirka ilaa aad ka aqoonsato dhawaqa gaariga xilliga uu u baahan yahay in la beddelo. waxaa sidaasi oo kale aad baran kartaa wada shaqaynta gacanta iyo lugta si deggan oo macaan adigoo hortaada eegaya. ku xirnow mar walba barta Facebook Abwaan Guutaale iyo barta YouTube-ka Guutaale Tube si aad u hesho barnaamijyo iyo warbixino ku raaligeliya.